haweenka danyarta ka ganacsada suuqa magaalada Burco ayaa maanta banaanbax ballaaran oo ay kaga cabanayaan sare u kaca dollarka Mareykanka isla markaasna ku keenay saameyn haweenka danyarta ee ka ganacsada bartamaha magaalada Burco. banaanbaxan ay kaga cabanayaan sare u kaca dollarkan ayaa waxay ka hordhigeen xafiiska maamulka gobolka Togdheer iyagoo bartaasi ka sheegay inay dollarku sicir bararkan dollarku uu dhibaato ku hayo ganacsigooda danyartani. waxaanay haweenka danyarta ee banka dhexe iyo xukuumadda ku eedeeyeen inaanay waxba ka qabanin kor u kaca dollarkan isla markaana aanay furaysteen dadka danyarta ee ku dhaqan guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland. anigoo ku bilaabaya magacayga Amaal Cumar oo ku nool gobolka Togdheer waxaan ka cabanaynaa dollarkii oo nagu kacay maciishadii cirkaan nagu gaadhay carruur yar oo danyar baa jira agoon baa jirta wax walba way jiraan annagoo goyn weyna kiilada baradhada ahayd kiilada xabuubta wax alla waxaan goynayna ma jirto lacagta Somaliland dhulka la dhacay oo dollarkii laga horeysiinayo lacagta Somaliland wadaniga ahaydna dhulka la dhigayo dhulka oo lacagtan ururnay noo gaadhay $100 marka waxaan xukuumadda ka codsanaynaa inay naga joojiyaan dollarka haddii aan la joojinayna qiimo sahlan oo dadka danyarta goyn karayaan aynu waxaan ka mid ahay ganacsatada yaryar ee ku dhexnaan saribada weyn ee Burco waxaan iibiyaa waxyaabaha aan ka soo iibsado bakhaarada kala soo rabo timirta kale caano kale waxaas oo kale aan iibiyaa shayga igu joogay oo kale $15 aan ku xisaabtay $105 أنا أقول حسابتي أنا سعره $2 ونقولنا لعقد سمعنا نفر $15 مركيان وحيان عليان حسابتي وحي هو بالنقضي بقول إيش أنا $15 يقول شوقي أنا حسابي أنا بقول إيش أنت ممكن يكون حراي $15 أنا أقول أنا معاش لو أنا معاش سوقاتي أيوة يقول طلع $1 كيو غالي يبي أنا جي محل نقضي قرده يقصدي وحبا ما أنا معاشين dadkii aanu soo shaqatay qarax baan kula noqday sida ku nool magaalada Burco gaar ahaan saribada weyn waxaan iibiyaa alaabo kala duwan oo raashin iyo qudaar iyo wax walba leh waxaan soo siistaa shayga iigu qaalisan $90 marka aan bedelo wuxuu noqdaa $90 ama waxba waan ka waaya aniga ayaa deyn laygu raacaa sidaa daraadeed dawladda iyo xukuumadda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay dollarka naga jabiyaan haddii aanay nagala dayn karaynin inay naga jabiyaan oo meel fiican oo naasilan oo maaquula inay dawladdu noo dhigto waayo sababtoo ah waan ku daynay lacagtii ahayd dollarka dayn ayaa naga raacday waxba waan weynay dadka yagin ganacsatada yarna waan ka dhex baxnay meesha waxaanu ka cabanaynaa sicir barar uu nagu hayo dollarkuna ma aha lacag dalkeena waa lacag shisheeye lacagtii dalkeena qaaliga ahayd sida qaaliga loo sarrifi jiray dhulka ayuu la dhacay hadda waxaanu nahay dad danyara magaalada iska xasaaga dayn baanu soo qaadanaa wixii markii aanu iibino kala balow bad ayaana lagu yeeshaa faa'iidana maba aragnaba dollarku muxuu maraya maanta dollarku maanta 80 buu maraya 800 buu maraya marka dawladda sharafta iyo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa dollarka in أما نلقى تشوفيه صرف لياشن إيه لمن كان يجمير تضع أنا سينشر رئيس $15 أنا كنا شنو $15 بمرية dollar كنا بمرية سديد بقولي كونتني شنو بمرية أنا كأصلا مدحونا شرفت أحمد محمد سينايو إنه نجت بيا $1 سحر برك إنه نجت مين إنه لعقت وضعني جالس مالي لين الدولار المريرة صور مرية هدي $1 كنا نجت بيه معينة إن حياة العقد هذا يعني قيمها هي شرفتها له إن أحوك اللي يبسمو ونلوج waxaan fadhiyaa saribada weyna suuqa fadhiista waxa weeyaan kiilo ka baradhada bacda baradhada waxana laga sii jiray $25 imma kana waxana laga sii $40 waxaan ku guur maxaan ahay bacdi basasha xabadii maxaan ahay kamsara ahay $1 baan lagu garaa awalan laan baan ku iibsan jiray marka waxaan doonaynaa waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha Ahmed Maxamed Sinaayi inuu naga jabiyo waxa ku guur maxaan ahay $1 si kastaba ha ahaatee xukuumadda haatan talada dalka haysa ayaan waxba ka qaban baahiya isla markaana aan hoos u eegin dadka jilicsan ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka Somaliland waa Maxamed Cali Axmed Kaabe wararka telefishinka caalamka Som News magaalada Burco.